dadka baahiyaha gaarka qaba inta badan bulshadu kaalintii la rabay inay gaarsiiyaan ma gaarsiin, hadday noqoto xagga waxbarashada, xagga shaqooyinka, xagga guurka, intaba dhaliilo badan baa ka jira. soomaaliduna aada looga qabsan dadka baahiyaha gaarka qaba. tusaale yar haddaan soo qaato, haddii wiil soomaaliyeed uu kamid dadka aragala ama guud ahaan naafada ka abnaha qaarkood uu gabar soomaaliyeed la sheekayso ay hawsha u dhammaato, hasaawada dhamaystaan, oo taga reerka gurigoodii, oo dee gabadha tiraada wiilkaas ayaan wada sheekaysan oo noo dhamaatay sheekadii, mar alla markuu guriga yimaado ninkan baa bismi illaahi araxmaani iraxiim ragga kale wey ninka weydi qurdan dhag baa laleeyahy gabadhi. marka haddii saa la yidhi maxaa imaanaya in gabadhiina halkaa hadday iyada ku qanacsanayd waa dho asagiina niyajab ku dhaco. marka waxaan rajeynaya waxaa noogu muhiimsan haddaan nahay dadka baahiyaha gaar qaba inay tahay bulshada soomaaliyeed inay u fahamto qofku hadduu xubin la-yahay kama dhigno inuu aqliga la-yahay. caqliga ilaahay baa bixiyo dadku u qaybiyey, qofku caqligiisa meelba ku maraa, waxna ku qabsadaa, horumarna ku gaaraa. waxaan xasuustaa waqtiyaad ka mid a ayaa qof aanu aada saaxiibo lahayn ayaa wuxuu weydiiyey su-aal la xidhiidha naafada xubintaa ka ahayd. wuxuu ku yidhi niyow maalin walbaba wada shaqaynaa, waxaad timaadaa adigoo labisano maasha allah dee qurux badane, dharkan aad xiranta ayaa kusoo geliyay. su-aasha intaan uga jawaab biri aan kasoo horumarsanay yaa kuu qobeeya. waa su-aal soo la yaab maa. cuntada dadka araggala see u cunaan yaa afka ugu gura. bulshada aaminsan qofka inuuna labasan karin, inuuna qobaysan karin, inuuna cuntada aamini karin, masleedaa gabar iyo wiilay leeyihin bay ku aaminayaan ya. marka waxay la tahay aada iyo aad baan u kala furma kaafi galbeeri, laakiin guriga samo waxay aada ugu celaya waan ku mahadsan yihin. waxaana ku bilaabaynaa dadka baahiyaha gaarka qaba. xan yarna aleysiisaye dadka baahiyaha gaarka qaba hadday guursadaan ma furaan gabdhaha. gabdhaha iyaguna waa raamiyooyino ninkii naga guursada gabar baahiyaha gaarka qabta alacaashiisuu dhowkanaya. ragka iyaguna magaxana aqaano haddii lagu qayriyo iyo haddii la dhaayo ereyga wanaagsan bay ugu horceliyaan. marka gabdho badan waxaan filayaa soomaaliyada kuwa inta jooga kuwa kalaba inay gabadha dhihi doonaan xaggee laga helaa konfurtoodanasi. waayaha furniinka aada u badnadeen halkaana waa kugu imaan maayo xagga furniinka. marka dunyasana haddaad annaga nagu bilowdeen waad ku mahadsan tihiin, tawfiiqna waa haleesheen baan unaweynaya ee taleefka wanaagsaneed. aad baan ugu mahadcelinaynaa. sidoo kale waxaan leenahay dhalinyarada soomaaliyeed meeshan fadhida hadda ay doctor markaanaysa waxay tiri dadka halka xaas leh ayaanu ku xeejinaynaa. hal mar baa la isla kacay ya. marka halmaan bay iyada ka ahayd. marka dhalinyarada kale maanta fadhida ee araggooda iyo inooda qaba ee la yidhi waxaa laga horumarinayaa kuwa baahiyaha gaar qaba hanaga xanaaqinaan leena saaxiibayaal hoogaa idin magaalada idin furan. marka barnaamijka waa wada leenahay annaga haddii nala ku bilaabayna haddee waan malaynayaa waa wada furmatay waa soo socotaae insha allah waad nala wadaagi doontaan. laakiin waxaa idin noqon doonaa qola idiin warantee meel cid baa loo sii harmarsanaano. reemiga soomaalidu ayagoo sahlan ma guuraan, markii meel raba in loo guuro waa la saamiyaa. ninkaa saamiyaha laga wareystayo la yidhahdaa bal meeshii ka waran. marka dad badan baa laga yaaba inay guryasamayis weydiinayaan maadaama lagu cusub yahay barnaamijkan. reer kala dhisay see loo dhisi doonaa, talo muxuu noqon doonaa, waxaas inay isweydiinayaan. marka dadka baahiyaha qaarka haddii lagu bilaabo halkaasaad bar kasoo dooni doontaan haddii alla idinkuna. aada iyo aada iyo aada waxaan ugu mahadcelinaynaa dhalinyarada soomaaliyeed ee sharafta iyo karaamada iyo ciisada leh ee barnaamijkan inta fikirtay haddana ficil ku dartay ee diyaarisay si ay dhalinyarada soomaaliyeed ee qiimaha leh oo laga yaabo baahiyo badan inay haystaan. si guud baan ka hadlaya dhalinyarada inay u sameeyaan qoysas qurux badan oo ay noloshooda kusii qurxiyaan. sidoo kale waxaan aada iyo aada ugu mahadcelinaynaa sheikhu kamida quruxda badan halkan ka jeediyey kuwa taageeray. waxaana rajaynayaa inayna maanta maalintii koobaad noqon, ayna maalmo badan oo kasoo qurux badan ay soo noqon doonto oo ay imaan doonto boqolaal iyo kuwayaal soomaaliyeedna ay markaa dhici doonto inay sidaan isa kasoo qurxusi guursadaan. waxaan sidoo kale rabaa inaan ugu dambeyn hadalkan u dheereeyey aan kusoo qatimo. qoys marka la dhisayo waxa ugu muhiimsan waxaan isleeyahay inay tahay nolosha waa waxa lagu bixinayo qoys islaameed oo soomaaliya oo lagu soo korayo dad laga sugayo inay ka yimaadaan.
marka waxyaabo badan baan ku bixinaa lacagta oo kale oo aan waxba kasoo noqonin laakiin qoyska Soomaaliyeed wax badan baa kasoo noqonaya intaas waa taageero intana meesha fadhiyada aan isdhehnin idinka ku dhawaan yaray baa tihiin oo dhalinyarada baa tihiin qolo kala baasho laga sugayaa taleefanka loo sii geli marka kulligeen inaan wada taageerno aad ugu mahadsantihiin dhalinyarada Soomaaliyeed waa barnaamij ay wada leedahay si gaar ah anagu uma nihin haddaan dadka baahiyaha gaarka qaba waa wax dhalinyarada Soomaaliyeed ka wada dhexeeya laakiin laga yaabee inay dadkii barnaamijka wada ay u arkeen marka wajiga koowaad inay ku bilaabaan dadka baahiyaha gaarka qaba aad iyo aad baad u mahadsantihiin